madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaa isugu yeedhay madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir shir degdeg si loo sii ambaqaado safgaradkii lagu gaaray gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay iyo dhamaystirka heshiiskii 17 Sebtembar lagu saxiixay gudaha magaalada Muqdisho. haddaba shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa aragtidooda gaarka ka dhiibtay shirka la filayo inuu dhawaan ka furmo gudaha magaalada Muqdisho. waxaan hormarka ugu horeyso haddaan nahay shacabka magaalada Laascaanood ku faraxsanahay midnimada Soomaaliya dadka Soomaaliya inay walaal yihiin waxaan soo dhaweynaynaa shirka ka furmaya bari magaalada Muqdisho caasimada dalka shirka marka ugu horeyso waxaan ka rajeynaynaa inuu noqdo kiina jaxa ee Soomaaliya doorasho xor iyo xalaal u horseeda waxaanu markastana ku bogaadinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo tanaasul fara badan sameeyay waxaanu ka rajeynaynaa madaxda maamul goboleedadana inay tanaasulka madaxweynuhu qaatay la qaataan midnimada laga shaqeeyo wada jirka laga shaqeeyo dadka Soomaaliyeed waa dad walaalo ah meel kasta ay joogaan raas Kambooni ilaa raas Casayr markasta midnimada Soomaaliya waa lama taabtaan waad ogtihiin maanta wadanka waxa ka jira barihiinii inay Kenya soo damacday taasoo waxay keenaysaa safaraaruq dadka Soomaaliyeed waxaan ognahay dad Soomaaliyeed inay Kenya qaarkood ay la shaqeeyaan marka si midnimada looga shaqeeyo waa in doorasho xor iyo xalaal looga shaqeeyaa wadanka qalalaasay in aan la gelin laga shaqeyn anagu maanta waa ka daalay waxa la yiraahdo dagaal sokeeyo Soomaaliya way soo aragtay dagaalku dhibtu leeyahay waa la soo arkay dadka Soomaaliya maanta guul iyo midnimo ayaa dadka Soomaaliya u muuqata waxaan rajeynayaa inuu noqdo shir ay ka soo baxaan wax midho dhal ummadda Soomaaliyeed oo dhan u ah runtii waa shir la wada sugayay madaxweynuhu aad buu ugu mahadsan yahay runtii tanaasulka faraha badan uu mar walba sameeyo waxaan u sheegayaa qolada mucaaradka iyaga waxaan leeyahay mucaarad noqda mucaarad wax dhisay ha noqonina mucaaradka idinku dalka burburintiisa iyo kala qaybintiisa ka shaqeyn lahaa maamul goboleedyada waxaan leeyahay runtii qaybo kamid ah deewaaba la tuhmay marka waxaan leenahay war imika la istuhin saaro hal sameeyo shirkaasi shirkii loogu dareeri lahaa doorasho ha noqdo haddaanu nahay shacabka gobolka Sool runtii aragti indho gooniyaan ku eeganaa waxaan soo dhaweynaynaa shirka ka furmaya bari insha Allah taala magaalada Muqdisho ee lagu soo afmeerayo tabashooyinkii ka dhashay heshiiskii 17 Sebtembar waxaan rajeynayaa shirkaasi inuu noqdo shirkii ugu dambeeyay ee lagu soo gabagabeeyo khilaafaadkii dhacay madaxda Soomaaliyeed ay garawsato inay khilaafka iyo kala fogaanshaha joojiso wadanku wuxuu u baahan yahay doorasho marxalad adag baa lagu jiraa marxaladaas sidii looga bixi lahaa in la qorsheeyo Soomaalidu waxay tiraahdaa haddaan la kala roonaan roomado ha lagu soo dhawaado wadankan ha laga shaqeeyo dantiisa danaha shisheeye iyo danaha shakhsiga meelaha la iska dhigo wadankan dhinaca isu raaco taasaan kula talinaynaa madaxda iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ku boorinaynaa inay ka qayb qaataan horumarka iyo wadankan hore ugu socon lahaa haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Laascaanood aad iyo aad baanu u soo dhaweynaynaa shirka bari ka furmi doona magaalada Xamar madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay tanaasulka uu badan ee uu sameeyay waxaan rajayn doonaa insha Allah in ma garanaysaa uu ka soo baxo wada tashigaas bari la leeyahay inuu ka soo baxo arrimo meel dhal ah oo dalku ku aado door Amsar raadiyo telefishinka raadiyaha qaranka Laascaanood